soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan. aad baan idin salaamaya. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. haddaad maqashaan haa soo qora. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. alaykum asalaam habar yar khadra, aad baan kuu salaamayaa. soo dhawaada. aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa. soo dhawaada asxaabta qaaliga ah meel kastaad joogtaan. amiira inaabta aad baan kuu salaamay noolow, ilaa khayra ku siiyo. ayaan baanki samsam gorod kulli waa idin wada salaamayaa. allah idin wada karaameeya dhammaantiin. ibna faahiye in adeerkii aad baan kuu salaamayaa. kollegiin soo dhawaada. axmed ismaaciil, hindaa, caweel, somalilander kulli waa idin wada salaamayaa. soo dhawaada insha allah. waa barnaamij muhiima oo ku socda soomaalida minnesota. tolmoon salaan sare may habo, aad baan kuu salaamayaa. waa waray habar wadaagtii gobdeeq waa ku salaamay. salaan kaliya laaba. aad baan dhammaantii idiin salaamayaa. wixii soo galay gadaal bay ka dhegaysan doonaan insha allah. waa iska degdegsanahay. waa idiin bilaabaya barnaamijka. waa waraya cabdikaafi nuur sheekh, aad baan kuu salaamay. adeertay ayaan baanki, aad baan kuu salaamayaa. okay, bismi illaahi raxmaan الraxiim. alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin, wsalaatu wasalaamu calى ashrafi اlmursaliin sayidina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin. ama bacd. inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba shacabka soomaaliyeed, inta i necab, inta i jecel, inta i taageersan iyo inta iga soo horjeedaba, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. barnaamijkeygan maanta muxuu ku saabsan yahay? barnaamijkeygan maanta wuxuu ku saabsan yahay fariin ku socota soomaalida degan gobolka minnesota. fariintaas oo ah doorashada. soomaaliyay waad ogeydeen 2 sano ka hor waxaynu juhdi, dhaqaale, lacag, xoog, aqoon, wax walba aynu gelinnay gabar soomaaliyeed oo la yidhaahdo ilhaan cumar, oo marka aynu islahayn waa nuur u soo baxay shacabka soomaaliyeed. looma kala hadhin. ama reerkay u dhexday ha noqoto, ama reerkay ka dhalatay ha noqoto, ama reer kale soomaaliyeedba ha noqoto. qabaa'ilada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, doorashadii ilhaan cumar ee ka dhacday gobolka minnesota umayna kala hadhin. ilaahay baa mahad iska leh, way soo baxdo. ha soo baxdo. ilhaan cumar meeshii laga filayey mayna istaagin. tan iyo maalintii la doortay 2 sano shacabka soomaaliyeed iyo ilhaan ismay arkin. wax ilana ismay saarin. soomaaliyay maanta ilhaan waa inagu soo noqota iyadoo doonaysa in soomaalidu cod siiyaan. maalintaynu dooranay inoogu dambaysay. ilhaan saad la socotaan, xayndaabkii diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed labadaba way ka gudubtay. runna run, beenna been. marka runta laga hadlo aan hal qabiil la isku qaadin, xayndaabkii diinta islaamka iyo dhaqankii soomaaliyeed ilhaan way ka tallaabsatay. ilhaan Somali community minnesota iyo dadkii doortay waxay u qabatay iska dhaafe. waxay ugu abaalgudday cay iyo aflagaado. buugga ay qortay beejadkiisa
marka aad akhridaan beejaska qaar waxaad arkaysaan iyadoo caayaysa aflagaadaynaysa communitiga Soomaaliyeed hadda hadalkayga u fiirsada buugga Ilhaan qortay waxaa ka buuxa aflagaado badan oo ku socota Soomaalida Minnesota hadda maysan oran qabiil maysan amaanin qabiil maysan caay qabiil kale laakiin waxay caayday Soomaali oo dhan marka qofka maanta Ilhaan isla qabiil ugu cararo ogow qabiilkan aad ka dhalatay adigu maysan amaanin laakiin magacii Soomaaliyeed oo dhan bay caayday Soomaaliyay waxba yaan been la isku sheegi waxa waddankeenu soo burburiyay ee bartaan ina keenay waa qabiil la dhibaatadu leeyahay waa ogtii Ilhaan Cumar xayndaabka diinta islaamka way ka gudubtay dhaqanka Soomaaliyeedna way ka gudubtay waa maxay waxa ay Soomaali u qaban kartay Ilhaan qoyskeedii ayaad ogtiin meesha dhigtay guusheedii markii ugu horeysay waxay ka bilowday inay burburisay qoyskeedii iyadoo wiil Soomaaliyeed oo juhdigaad aragteen soo galiyay halgankaad aragteen isagii reerkiisu la soo galeen uu qabo ayay ka raacday nin cadaan ma beenba taasi ma beenba iyadoo uu qabo ayay raacday Ilhaan waxyaalahan diinteenu ogolay ee ay wado iyo dadkii taageersantay waa ogtiin waxba yeynaan isku qarin yaa waxba indhaha la iska qarin waxyaalaha aan diinteenu ogolayn Ilhaan maxay kaga dayan karaan dhalinyarada ku dhalatay waddankan iyada oo ka timi Afrika xero qaxooti da'daad aragteen ah oo qof weyn ah maanta aan la oran karin waa teenager ama waa ilmo yar oo waxa u geeyay caqli xumo oo waddankan ay ku dhalatay ayaad aragteen ficilka ay samaysay ee foosho marka ilmaha halkan jooga muxuu kaga dayan karaa Ilhaan ilmaha halkan jooga ama ku dhashay Ilhaan muxuu kaga dayan karaa dhaqamada xunxun ee Ilhaan communitiga ay ku soo wado Soomaaliyeed dhaqamada xunxun Ilhaan ay ku soo wado Soomaalida Minnesota barita miyaad ka doodi kartaa marka wiilkaagu uu yiraahdo wiil asaageeyaan guursanaya marka gabadhaadu tiraahdo gabadh asaageeyaan guursanaya miyaad ka hadli kartaa ilaa shalay adaa ku taageero xumaantaan gabadhaan kama hadli kartid ما كهل ذكرتي وريارة إلهي أنت نكبقنا إلهان وحي نوقبتي هيبا يرات الصومالي هدين إنها عيب هين إلوسو جيت مجرته لباتي إني جلس ما تدبي نوقصوا النقطة لبدي السنة إلا دورته وإسكاد عارف ضدك الصومالي يوروب كسو قيلية ضدك أنا ما بقى هيبا وقت وجه جواب ما هي because أنا قاعد دورني أنا قاعد أجوجني قفك كسو قيلين يا يوروب أما قفك كسو قيلين يا سلطات بنقبنا يا أوكي dadka ka soo qaylinaya Yurub ama dadka ka soo qaylinaya kan aan qabtay dadka Yurub ka soo qaylinaya ama dadka ka soo qaylinaya Soomaaliya ee kule Ilhaan waa gabar Soomaaliyeed Ilhaan waa kan Ilhaan waa war annaga dooranay annagaana og dhibaatada noo geysatay annagaana og faa'iidada noo tari karto qofka Yurub ka soo qaylinaya ama Afrika ka soo qaylinaya meeshan boos kaaga banaan ma jirto bal waxaad ii sheegtaan Ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya Minnesota waynu wada joognaay waxa hal wax oo wax qabad oo Ilhaan ay qabatay ii sheeg aan ka ahayn inay noo soo jiido godob dad badan ayaa ku nool gobolka Minnesota oo ama garatiya Soomaali badan ayaa joogta gobolkan ajaanib kala jooga Spanish baa jooga Oran baa joogta Ethiopian baa jooga Arab baa joogta cid walba joogta cid laga laadlaado oo saxaafadaha caalamka la laadlaado ama gobolka la laadlaado maartay aan ahayn Soomaali community yaa inoo soo jiiday dad ma haysataynu nahay dad masaakiinaynu nahay kama baxno in aynu dad inaga lacag badan inaga cilmi badan aynu isku qaadno waxaanu u baahannahay inaynu ummadda aynu la degannahay kula noolaano bis jacayl
yaynu u baahannahay uma baahnin inaynu dadka aynu isku soo jeedin ilhaan waxay nagu soo jeedisay indhihii dadka maraykanka ah waxay noo abuurtay colaad waxay noo geysatay dhibaato wax ay qabatay ma jirto sumcad xumay inoo soo jiiday diinteennii iyo dhaqankeennii ayay meel kaga dhacday soomaaliye qabiil aynu iska ilowno maanta ay nagu soo noqotay gabadheenni aynu 2 sano ka hor doorannay ahayd hooyo soomaaliyeed oo 3 carruuro qoys qurux badan oo soomaaliyeed haysay markii dambena raacday tiim mayne iyadoo uu ninkeedii qaba raacday maanta ay nagu soo noqotay meelahaas ka ooyeysa halay codeeyo cod halay siiyo reer hebel waxaas hal iska ilaaw ilhaan dadka soomaaliyeed qof u codayn karaa ma jiro ilhaan dambi ilaahay buu ka fogaanayo qofka ilhaan u codeeyo because waxa ay wada iyo fusuqa ay wada oo dhan waa ogtay wax idinka qarsoon ma jirto horaa loo yiri muslimnimo khaas muuminnimo kugu dhowraynin gaal maxasta kugu dhowro ood magasataa dhaama ninka madow ee la tartamaya ayaa inoo dhaama markaynu xaqiiqada sheegno because isagu wuu ku dhageysanayaa wuu kula soo fadhiisanayaa xafiiskiisu kuu furayaa wuxuu ku leeyahay maxaan kuu qabtaa maxaad u baahan tihiin waxaad wax u baahan tihiin bal ii sheega laakiin gabadheennu maalintaynu doorannay ayaa inoogu dambaysay waxaa inoogu xigtay iyadioo nin qabo ayaa nin caddaani guursada oo tiimaynad la yidhaahdo yaa inoogu xigtay waxaa inoogu xigtay iyadioo ina caayasa oo twitter inagu caayasa iyadioo inagu caayasa buuggeeday qortay war ilaahay baan idinku dhaarshay soomaaliye soo iibsada buuggeeda oo bal fiiriya bal inaan ilhaan been ka sheegayay in kale ilhaan waa qof nacaladii ku dhacday been yaa laydiin sheegay aabbaheed ilaahay ha u naxariisto nuur saciid cilmi 5 bilood maysan wada hadlin waxa uu yidhi ma imaan karto aaskayga laakiin way tagtay maxayna ku wada hadlin waa aabba soomaaliyeed ilaahay ha u naxariisto oo nolol fiican ku soo koriyey oo soo dhaqaaleeyey oo meesha aragteen iyo magac iyo sumcadda soo gaarsiiyey maxay ku kala dhinteen waxay ku kala dhinteen markii iyadoo nin qabo lagu arka jaraa'idada adduunka iyadoo nin kale dabada hayo taasaa lagu kala dhintay oo lagu kala tegey soomaaliye waxba yaynaan been isku sheegin ilhaan damage ba inoo geysatay waxay soo wado ayaana ka sii daran balaaya baa la yidhi hor la qabto ayay leedahay ee daba la qabto ma laha isuga waxa weeyaan balaaya baa la yidhi hor la qabto ayay leedahay ee daba la qabto ma laha soomaaliyey gabadhaasi waxay soo wadaa wax diinteenna iyo dhaqankeennu ayna oggolayn hooyooyinka soomaaliyeed ee carruuraha under ageka u joogaan maraykano ha taageerina ilhaan because hadhow baad ka qoomamayn doontaan wallaahi oo sumu wallaahi waxaa idiin soo bixi doonta maalin aad odhan doontaan maxaa nagu watay ilhaan waa maalintaad aragtaan wiilkiina yar oo wiil kale le waa guursanaya ama aad aragtaan gabadhiina oo leh gabadh kale aan guursanaya diinteenna islaamku iyo dhaqankeenna anaa halkan la soo taagan cid wax kaga qaadi karta ma jirto diinteenna dadkaas la leeyahay LGBT la leeyahay annagu dooni wax ku darsan mayno maagi mayno caayi mayno discrimination kuma samaynayno laakiin diintayadu ma oggola waxaan diintayada iyo dhaqankayga oggolayna taraam baa yidhi ma ogoli war taraam oo kristana taagan ma ogoli see adigoo muslim oo ohan kartaa waa oggola ii sheeg taraam oo diinta kiristaanka haysta madaxweynihii maraykanka ayaa wuxuu taagan yahay LGBT ma ogoli mana aaminsani see adigoo muslimna u ohan kartaa waa oggola ii sheeg sida adigoo muslim aa u ohan kartid ii sheeg waa oggolahay qoomuluud no taraam oo kiristanaa diiday adoo muslina oggolaanay miya marka anigoo muslina haddaan idhaahdo diintaydu ma oggolo dadka waxaa iska dhaadhiciya LGBT buu discrimination cabdixakiin ku yahay kanuu ku yahay noo bari wax iga qaaday ma jirto xor baan hadalkayga wahay waa odhanayaa diintaydu ma oggola dhaqankayguna ma oggola anaa soo taagan
anaa soo taagan dadka meelaha ku soo qorqoraya ama ka hadlaya saas iyo saas nobody wax iga qaadi kara diinteennu ma ogola qoomuluudnimada ma ogola dhaqankayga Soomaaliyeedna ma ogola diinteeda islaamka ma ogola I'm Muslim I'm Sunni ilhaanna dhaqan xumo ayay u wadaa community-ga Soomaaliyeed salaam ilhaan dhaqan xumo ayay u wadaa community-ga Soomaaliyeed dhaqan xumo ay u soo jeedaysaa shacabka Soomaaliyeed diinteena iyo dhaqankeenu qoomuluud ma ogola anaa taagan anaan oranaya taraam ha lagu qabsado kaas taraam baa yiraahdaa taraam ha lagu qabsado nobody wax iga qaaday shacabka Soomaaliyeed hadhowyeena laga qoomamay hooyooyinka Soomaaliyeed ilmihiinu ilhaan yaanay kaga dayanin wax xun dad baa waxay soo qorayaan adeer diin kuma diidan war qabiil baa ku madax maray adigoo qardha jooga ayaa waxa doonaysaa qardha salkeeda adoo jooga ayaa waxa doonaysaa in aad wax Minnesota ka dhacaya aad tiraahid mas'uul baan ka noqonaya aad ka hadashay no qof qardha jooga qardho fadhiya ayaa wuxuu doonayaa inuu ka dhacay waxa doorashada ka dhacaysa Minnesota kaala arrimiyo kaala calaashan qabiil Soomaaliyeey ilhaan dhibaato ayay inoo soo wadaa aynu hadhow ka qoomamayn doono ilhaan xaqiiqada dhabta markaan idiin sheego dambiyo ayaa ku socda marka haddii xitaa la doorto dee maxaynu iskaga khasaarin ilhaan xabsi bay u socotaa taasi waa mid aan cidna dadkii waddanka u dhashay faldambiyeedyada hadda ay ilhaan ku jirto dadkii waddanka u dhashay ayaa qaarkood lagu xidhxiray oo congress ahaa oo senator ahaa ayaa lagu xidhxiray corruptionka ay sameeyeen daraaddeed kii bayna samaysay ugu dambayn shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxaan kula talinayaa in aan gabadhaasi sida nijaasta la iskaga fogeeyo inaynu iskaga fogeyno wax codana aynaan siinin sababtoo ah waxyaalaha ay wado qof uu daah ka saaran yahay ma jirto dhammaantiin doorashadu waa socotaa waana la karbaashaya karbaash waalan baa ku socda wax ayna filayn ayaa ku soo baxay maanta waxaan arkay nin dhahayaa iyo waxaan matala jaaliyadda Soomaali galbeed oo afmaamay ku hadlaya oo Soomaali TV Minnesota ka hadlaya islaamnimadiisu dhan baa daciifa ninkaas waa nijaas waa dayuuskuna waxa weeyaan waa qofka diintiisu waxayna ogolayn warsee diintaydu waxayna ogolayn iyo dhaqankaygu waxayna ogolayn war ilhaan waxay tiri rag waxay isfuulaan gabdhuhuna hay isfuulaan ma taasaa diinteenu ogosha taasaa bilif garaysanta way aaminsanta ma beenay isku sheeganaa ninka u doodaya ilhaan ama dhahaya Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota joogo bal ilhaan waan kula taageerayaa waana kula ogolaanayaa imow ila soo fariiso ilana qaybba aan is dhageysano dood igula soo fariiso miiska isku keenkeen aynu wada hadalno saas dee hadday diinteenu islaamka ogashaa in ninku ninka fuulo gabadhuna gabadha fartayso dee waxa weeyaan dee raac bal intiina halkaa ku jirto dhano diinteenu islaamka maxay ka qabtaa qoomuluudnimo maxay ka qabtaa ii sheega hagabanina sheega maxay ka qabtaa diinteenu ma ogola dhaqankeenuna ma ogola Trump oo Kristaana yiri ma ogolin Republicanku waxay yiraahdeen ma ogoli waa diidana si adigoo muslimiin lagu dhalay aad u ogolaanaysa ninka taageeraya ilhaan ee Minnesota jooga ee ilhaan hala doorto ee cararaya TV-da ka hadlayo ila soo fariiso aynu doodno wax cad iike wax cad iike qabiil halkaan dhig shakhsi jacayl halkaan dhig Soomaalinimo halkaan dhig diin iyo dhaqan soo fariis diin iyo dhaqan inoo soo fariis waxaan raadinayaa maanta ninka Soomaali community Soomaalida Soomaali galbeed maamay Soomaali galbeed ninka maanta ka hadlayay Soomaali TV ayaan raadinayaa bal ninkaasi wuxuu yiri hala taageero wuxuu ku taageeray man doonaya bal aan waraysanaa soo fariis
waa Soomaali waa gabar Soomaaliyeed waa gabar war muslim iyo Soomaalnimo afka lagama aha waa inaad diintaada iyo dhaqankaaga aad ku adkaysato dadkana wax la qaybsatid dadkaas leeyahay LGBT ha maagin ha caayin discrimination ha ku samayn waxa ku odhan laakiin waxba ha ku darsan laakiin waa ku dhex labanaya maxamed jamaal nin la yiraahdo wuxuu soo qoray halkan xayawaan nin weyn baa tahay nidaamka meesha ilaali war nidaamka meesha madaxweynaha ugu haysta wadanka haysta ugu sareeya wuxuu yiri ma ogoli qoomaluud dhacalada kugu dhacday maxamed jamaalo nidaamka meesha ilaali ku war ana la soo taagan ana Minnesota jooga mana ogoli baan dhahaya hay wax ka soo qor nidaamka meesha ilaali ku madaxweynihii wadanka yiri ma ogoli oo kiristana ana muslim maxay diiday wariya oo diinteeda ogolaan xayawaan ka bax meesha Soomaaliyeed المهم gabadhaasi dhibaatada inoo geysatay waa ogtiin wax idin ka qarsoon ma jirto shakaroon xaaji jawaab aad u fiican baad siisay maxamed jamaal ninka la yiraahdo jawaab aad u wanaagsan baad siisay laakiin mid baan idin sheegayaa qof nin Soomaaliyeed oo ilhaan taageeraya hadda aragtaan waa qoomkaas sababtoo hadda waxaaba soo baxayba waxaan arkay gabadhii fanaanada ahayd ee farxiyo fiska ayaa waxa leeyahay nin baa guursaday nin baaba soo baxay oo wuxuu yiri anuu bay qabi jireen meherkayga ima siinin waaba soo taaganya marka hala yaabina halkaasayba maanta sheekadii dadka Soomaaliyeed ay maraysaa marka nin taageeraya hadda aragtaan hala yaabina oo iska qoomkaas oo kale aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxa weeye ilhaan waa inaynu sida nijaasta la iskaga fogeeyo waa inaynu iskaga fogeynaa barnaamijku waa ka baxaya dhammaantiin waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan aad baan idin salaamaya soo dhawaada asxaabta qaaliga haddaad maqashaan haa soo qora aad baan idin salaamaya dhammaantiin عليكم السلام حمر يا خضراء aad baan ku salaamayaa soo dhawaada aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa soo dhawaada asxaabta qaaliga ah meel kastaad joogtaan أميرة هنا aad baan ku salaamay noolow ilaa khayr ku siiyo ayaan banki samsam gorod kulli waa idin wada salaamayaa allah idin wada karaameeyo dhammaantiin ibn faahiye in adeerkii aad baan ku salaamayaa kulligiin soo dhawaada axmed ismaaciil hindaa caweel somalilander kulli waa idin wada salaamayaa soo dhawaada insha allah waa barnaamij muhiima oo ku socda Soomaalida Minnesota tolmoon salaan sare may habo aad baan ku salaamayaa waa waray habar wadaagtii gobdeeq waa ku salaamay salaan kaliya laaba aad baan dhammaantiin idin salaamayaa wixii soo galay gadaal bay ka dhagaysan doonaan insha Allah waa iska degdegsanahay waa idin bilaabaya barnaamijka waa waray cabdi kaafi nuur sheekh aad baan ku salaamay
naadeertay ayaan banki aad baan kuu salaamayaa. Okay, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انت مقعيق يا موقعيق تقانب الشعب الصوماليات، انت النعب، انت الجعل، انت التاجرسن، انت يقصهر جدبا لما انتين وحان نقول السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كيغان ما انت محوكو سابسين، برنامج كيغان ما انت محوكو سابسين فرين كسعوطا soomaalida degan gobolka Minnesota. fariintaas oo ah doorashada Soomaaliya waad ogeydeen 2 sano ka hor waxaynu juhdi dhaqaale lacag xoog aqoon wax walba aynu gelinay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Ilhaan Cumar oo marka aynu islahayn waa nuur u soo baxay shacabka Soomaaliyeed looma kala harin ama reerkay u dhaxday ha noqoto ama reerkay ka dhalatay ha noqoto ama reer kale Soomaaliyeed ba ha noqoto qabaa'ilada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan doorashadii Ilhaan Cumar ee ka dhacday gobolka Minnesota umayna kala harin. ilaahay baa mahad iska leh way soo baxdo ha soo baxdo Ilhaan Cumar meeshii laga filayay meena istaagin. tan iyo maalintii la doortay 2 sano shacabka Soomaaliyeed iyo Ilhaan ismay arkin wax ilana ismay saaray. Soomaaliya maanta Ilhaan waa inagu soo noqotay iyadoo doonaysa in Soomaalidu cod siiyaan. maalintaynu dooranay inoogu dambeysay Ilhaan saad la socotaan xaydaabkii diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed labadaba way ka gudubtay. runna run beena been marka runta laga hadlo aan hal qabiil la isku qaadin xaydaabkii diinta islaamka iyo dhaqankii Soomaaliyeed Ilhaan way ka talaabsatay. Ilhaan Somali community Minnesota iyo dadkii doortay waxay u qabatay iska dhaafe waxay ugu abaal gudday cay iyo aflagaado. buugga ay qortay beejadkiisa marka aad akhridaan beejadka qaar waxaad arkaysaan iyadoo caayaysa aflagaadaynaysa community-ga Soomaaliyeed. hadda hadalkayga u fiirsada buugga Ilhaan qortay waxaa ka buuxa aflagaado badan oo ku socota Soomaalida Minnesota. hadda maysan oran qabiil maysan ammaanin qabiil maysan caay qabiil kale laakiin waxay caayday Soomaali oo dhan. marka qofka maanta Ilhaan isla qabiil ugu cararow ogow qabiilkan aad ka dhalatay adigu maysan ammaanin laakiin magacii Soomaaliyeed oo dhan bay caayday. Soomaaliyay waxba yaan been la isku sheegi waxa waddankeenu soo burburiyay ee bartaan ina keenay waa qabiil. qabiil la dhibaatadu leeyahay waa ogtihiin. Ilhaan Cumar xaydaabka diinta islaamka way ka gudubtay dhaqanka Soomaaliyeedna way ka gudubtay. waa maxay waxa ay Soomaali u qaban kartay Ilhaan? qoyskeedii ayaad ogtihiin meesha dhigtay. guusheedii markii ugu horeysay waxay ka bilowday inay burburisay qoyskeedii iyadoo wiil Soomaaliyeed oo juhdigaad aragteen soo galiyay halgankaad aragteen isagii reerkiisu la soo galeen uu qabo ayay ka raacday nin cadaan. ma beenba taasi ma beenba iyadoo uu qabo ayay raacday. Ilhaan waxyaalahan diinteenu ogolay ee ay wado iyo dadkii taageersantay waa ogtiin waxba yeynaan isku qarin. yaa waxba indhaha la iska qarin waxyaalaha aan diinteenu ogolayn. Ilhaan maxay kaga dayan karaan dhalinyarada ku dhalatay waddankan iyada oo ka timi Afrika xero qaxooti da'daad aragteen ah oo qof weyn ah maanta aan la oran karin waa teenager ama waa ilmo yar oo waxa u geeyay caqli xumo oo waddankan ay ku dhalatay ayaad aragteen ficilka ay samaysay ee foosho xun. marka ilmaha halkan jooga muxuu kaga dayan karaa Ilhaan? ilmaha halkan jooga ama ku dhashay Ilhaan muxuu kaga dayan karaa? dhaqamada xunxun ee Ilhaan community-ga ay ku soo wado Soomaaliyeed dhaqamada xunxun Ilhaan ay ku soo wado Soomaalida Minnesota
barrinta miyaad ka doodi kartaa marka wiilkaagu uu yidhaahdo wiil asaagayaan guursanaya marka gabadhaadu tiraahdo gabadh asaagayaan guursanaya miyaad ka hadli kartaa ilaan shalay adaa ku taageera xumaantaan gabadhaan kama hadli kartid ma ka hadli kartid waryaara ilaahay intaynu ka baqno ilhaan waxay noo qabatay hayaba yaraatay Soomaali haddaynu nahay oo ceeb ahayna inoo soo jiita ma jirto dhibaato in gelis maanta dib inoogu soo noqotay labadii sane ee la doortay war iska dhaafa dadka Soomaaliya iyo Yurub ka soo qaylqayliya dadkaas anigu ma u hayaba waqti aan ugu jawaabo ma hayo because anaga dooranay anagaana og anagaana joogno qofka ka soo qaylinaya Yurub ama qofka ka soo qaylinaya sugdad baan qabanaya okay dadka ka soo qaylinaya Yurub ama dadka ka soo qaylinaya kana aan qabtay dadka Yurub ka soo qaylinaya ama dadka ka soo qaylinaya Soomaaliya ee kule ilhaan waa gabar Soomaaliyeed ilhaan waa kan ilhaan waa war annaga dooranay annagaana og dhibaatada noo geysatay annagaana og faa'iidada noo tari karto qofka Yurub ka soo qaylinaya ama Afrika soo qaylinaya meeshan boos kaaga banaan ma jirto bal waxaad ii sheegtaan Ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliya Minnesota waynu wada joognaay waxa hal wax oo wax qabad oo ilhaan ay qabatay ii sheega aan ka ahayn inay noo soo jiido godob dad badan ayaa ku nool gobolka Minnesota oo ama garatiya Soomaali badan ayaa joogta gobolkan ajaanib kala jooga Spanish baa jooga Oran baa joogta Ethiopian baa jooga Arab baa joogta cid walba joogta cid laga laadlaado oo saxaafadaha caalamka la hadlaado ama gobolka la hadlaado maartay aan ahayn Soomaali community yaa inoo soo jiiday dad ma haysataynu nahay dad masaakiinaynu nahay kama baxno in aynu dad inaga lacag badan inaga cilmi badan aynu isku qaadno waxaanu u baahannahay inaynu ummadda aynu la degannahay kula noolaano bis jacayl yaanu u baahannahay uma baahnin inaynu dadka aynu isku soo jeedin ilhaan waxay nagu soo jeedisay indhihii dadka Mareykanka ah waxay noo abuurtay colaad waxay noo geysatay dhibaato wax ay qabatay ma jirto sumcad xuma inoo soo jiiday diinteenni iyo dhaqankeenni ayay meel kaga dhacday Soomaaliya qabiil aynu iska ilowno maanta ay nagu soo noqotay gabadheeni aynu labada sano ka hor dooranay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo 3 caruur oo qoys qurux badan oo Soomaaliyeed haysay markii dambana raacday team mayna iyadoo uu ninkeedii qaba raacday maanta ay nagu soo noqotay meelahaas ka ooyaysa halay codeeyo cod halay siiyo reer hebel reer waxaas hal iska ilaaw ilhaan dadka Soomaaliyeed qof u codayn kara ma jiro ilhaan dambi ilaahay buu ka fogaanayo qofka ilhaan u codeeyo because waxa ay wada iyo fusuqa ay wada oo dhan waa ogtay wax idinka qarsoon ma jirto horaa loo yiri muslimnimo khaas muuminimo kugu dhowraynin gaal maxasta kugu dhowro ood magasataa dhaama ninka madow ee la tartamaya ayaa inoo dhaama markaynu xaqiiqada sheegno because isagu wuu ku dhageysanayaa wuu kula soo fadhiisanayaa xafiiskiisu ku furaya wuxuu ku leeyahay maxaan kuu qabtaa maxaad u baahan tihiin waxaad wax u baahan tihiin bal ii sheega laakiin gabadheenu maalintaynu dooranay ayaa inoogu dambeysay waxa inoogu xigtay iyadoo nin qabo ayaa nin cadaan guursada oo tiimeynad la yiraahdo yaa inoogu xigtay waxa inoogu xigtay iyadoo in caayisa oo Twitter inagu caayisa iyadoo inagu caayisa buugeeda qortay war ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed soo iibsada buugeeda oo bal fiiriya bal inaan ilhaan been ka sheegayay in kale ilhaan waa qof nacaladi ku dhacday been yaa la idin sheegay aabaheed ilaahay ha u naxariisto Nuur Saciid Cilmi 5 bilood maysan wada hadlin waxa uu yiri ma iimaan karto aaskayga laakiin way tagtay maxayna ku wada hadlin waa aaba Soomaaliyeed ilaahay ha u naxariisto oo nolol fiican ku soo koriyo oo soo dhaqaaleeyay oo meesha aragteen iyo magac iyo sumcada soo gaarsiiyay maxay ku kala dhinteen waxay ku kala dhinteen markii iyadoo nin qabo lagu arkay jaraa'idada adduunka iyadoo nin kala dabada hayo
taasaa lagu kala dhintay oo lagu kala tegey soomaaliyay waxba yaynaan been isku sheegin ilhaan daamaj ba inoo geysatay waxay soo waddo ayaana ka sii daran balaaya baa la yidhi hor la qabto ayay leedahay ee daba la qabto ma laha suga waxa weeyaan balaaya baa la yidhi hor la qabto ayay leedahay ee daba la qabto ma laha soomaaliyay gabadhaasi waxay soo waddaa wax diinteenna iyo dhaqankeennu ayna oggolayn hooyooyinka soomaaliyeed ee carruuraha under ageka u joogaan maraykano ha taageerina ilhaan because hadhow baad ka qoomamayn doontaan wallaahi oo sumu wallaahi waxaa idiin soo bixi doonta maalin aad odhan doontaan maxaa nagu watay ilhaan waa maalintaad aragtaan wiilkiina yar oo wiil kale le waa guursanaya ama aad aragtaan gabadhiina oo leh gabadh kale aan guursanaya diinteenna islaamku iyo dhaqankeenna anaa halkan la soo taagan cid wax kaga qaadi karta ma jirto diinteenna dadkaas la leeyahay l g b t la leeyahay annagu wax ku darsan mayno maagi mayno caayi mayno discrimination kuma samaynayno laakiin diintayadu ma ogola waxaan diintayada iyo dhaqankayga ogolayna taraam baa yidhi ma ogoli war taraam oo kristana taagan ma ogoli see adigoo muslim oo odhan kartaa waa ogola ii sheeg taraam oo diinta kiristaanka haysta madaxweynihii maraykanka ayaa wuxuu taagan yahay l g b t ma ogoli mana aaminsani see adigoo muslimna u odhan kartaa waa ogola ii sheeg sida adigoo muslin aa u odhan kartid ii sheeg waa ogolahay qoomuluud no taraam oo kiristanaa diiday adoo muslina ogolaanay miya marka anigoo muslina haddaan idhaahdo diintaydu ma ogolo dadka waxaa iska dhaadhiciya l g b t buu discrimination cabdixakiin ku yahay kanuu ku yahay no bari wax iga qaaday ma jirto xor baana hadalkayga wahay waa odhanayaa diintaydu ma ogola dhaqankayguna ma ogola anaa soo taagan dadka meelaha ku soo qorqoraya ama ka hadlaya saas no bari wax iga qaadi kara diinteennu ma ogola qoomuluudnimada ma ogola dhaqankayga soomaaliyeedna ma ogola diintayda islaamka ma ogola am muslim am sunni ilhaanna dhaqan xumo ayay u wadaa communitiga soomaaliyeed ilhaan dhaqan xumo ayay u wadaa communitiga soomaaliyeed dhaqan xumay u soo jeedaysaa shacabka soomaaliyeed diinteenna iyo dhaqankeennu qoomuluud ma ogola anaa taagan anaana odhanaya taraam ha lagu qabsado kaas taraam baa yidhaha taraam ha lagu qabsado no bari wax iga qaaday shacabka soomaaliyeedo hadhow yeynaan laga qoomamayn hooyooyinka soomaaliyeed ilmihiinnu ilhaan yaanay kaga dayanin wax xun dad baa waxay soo qorayaan adeer diin kuma diidan war qabiil baa ku madax maray adigoo qardho jooga ayaa waxaad doonaysaa qardho salkeeda adoo jooga ayaa waxaad doonaysaa in aad waxa minisoodho ka dhacaya aad tiraahid mas-uul baan ka noqonaya ood ka hadashid no qof qardho jooga qardho fadhiya ayaa wuxuu doonayaa inuu ka dhacay waxa doorashada ka dhacaysa minisoota kaala arrimiyo kaala adla calaashan qabiil soomaaliyay ilhaan dhibaato ayay inoo soo wadaa aynu hadhow ka qoomamayn doonno ilhaan xaqiiqada dhabtaa markaan idiin sheego dembiyo ayaa ku socda marka haddii xitaa la doorto dee maxaynu iskaga khasaarin ilhaan xabsi bay u socotaa taasi waa mid aan cidna dadkii waddanka u dhashay faldembiyeedyadii hadda ay ilhaan ku jirto dadkii waddanka u dhashay ayaa qaarkood lagu xidhxiray oo congress ahaa oo senatarha ahaa ayaa lagu xidhxiray corruptionka ay sameeyeen daraaddeed kii bayna samaysa ugu dambayn shacabka soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxaan kula talinayaa in aan gabadhaasi sida nijaasta la iskaga fogeeyo inaynu iskaga fogeyno wax codana aynaan siinin sababtoo ah waxyaalaha ay waddo qof uu daah ka saaran yahay ma jirto
dhammaantiin doorashadu waa socotaa waana la karbaashaya karbaash waalan baa ku socda wax ayna filayn ayaa ku soo baxay maanta waxaan arkay nin dhahayaa iyo waxaan matala jaaliyadda Soomaali galbeed oo afmaamay ku hadlaya oo Soomaali TV Minnesota ka hadlaya islaamnimadiisu dhan baa daciifa ninkaas waa nijaas waa dayuuskuna waxa weeyaan waa qofka diintiisu waxayna ogolayn warsee diintaydu waxayna ogolayn iyo dhaqankaygu waxayna ogolayn war ilaahan waxay tiri rag waxay isfuulaan gabdhuhuna hay isfuulaan ma taasa diintan ogasha taasa bilif karaysanta way aaminsanta ma been isku sheeganaa ninka u doodaya ilaahan ama dhahayo Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota joogo bal ilaahan waan kula taageerayaa waan kula ogolaanayaa imow ila soo fariiso ilana qaybsba aan is dhageysano dood ugu soo fariiso miiska isku keenkeen aynu wada hadalno saas de haday diinteenu islaamka ogasha in ninka fuulo gabadhuna gabadha fartayso de wax weeyaan daraa bal intiina halka ku jirto dhano diinteenu islaamka maxay ka qabtaa qoomuluudnimo maxay ka qabtaa ay sheega hagabanina sheega maxay ka qabtaa diinteenu ma ogola dhaqankeenu ma ogola Trump oo Kristiyaana yiri ma ogolin Republican waxay yiraahdeen ma ogoli waa diidana si adigoo muslimiin lagu dhalay adoo ogolaanaysa ninka taageeraya ilaahan ee Minnesota jooga ee ilaahan hal doorto ee cararaya TV-da ka hadlayo ila soo fariiso aynu doodno wax cad iike wax cad iike qabiil halkaan dhig shakhsi jacayl halkaan dhig Soomaalinimo halkaan dhig diin iyo dhaqan soo fariis diin iyo dhaqan inoo soo fariis waxaan raadinayaa maanta ninka Soomaali community Soomaali galbeed maamay Soomaali galbeed ninka maanta ka hadlayay Soomaali TV ayaan raadinayaa bal ninkaasi wuxuu yiri hal taageero wuxuu ku taageeray man doonaya bal aan swareysanahay soo fariis waa Soomaali waa gabadh Soomaaliyeed waa gabadh war muslim iyo Soomaalnimo afka laga ma aha waa inaad diintaada iyo dhaqankaaga aad ku adkaysato dadkana wax la qaybsatay dadkaas leeyahay LGBT ha maagin ha caayin discrimination ku sameyn waxa ku oran laakiin waxba ku darsan laakiin waa ku dhex labanaya Maxamed Jamaal nin la yiraahdo wuxuu soo qoray halkan xayawaan nin weyn baa tahay nidaamka meesha ilaali war nidaamka meesha madaxweynaha ugu haysta wadanka haysta ugu sareeya wuxuu yiri ma ogoli qoomalood dhacalada kugu dhacday Maxamed Jamaalo nidaamka meesha ilaali ku war ana la soo taagan ana Minnesota jooga mana ogoli baan dhahayaa hay wax ka soo qor nidaamka meesha ilaali ku madaxweynaha wadanka yiri ma ogoli oo Kiristana ana muslim maxay diiday wariya oo diinteeda ogolaan xayawaan ka bax meesha Soomaaliyeed المهم gabadhaasi dhibaatada inoo geysatay waa ogtiin wax idin ka qarsoon ma jirto shakaroon xaaji jawaab aad u fiican baad siisay Maxamed Jamaal ninka la yiraahdo jawaab aad u wanaagsan baad siisay laakiin mid baan idin sheegayaa qof nin Soomaaliyeed oo ilaahan taageeray hadda aragtaan waa qoomkaas sababtoo hadda waxa soo baxayba waxaan arkay gabadhii fanaanada ahayd ee Farxiyo Fiska ayaa waxa leeyahay nin baa guursaday nin baaba soo baxay wuxuu yiri anuu bay qabi jiray meherkayga ima siinin waaba soo taagan marka hala yaabina halkaasayba maanta sheekadii dadka Soomaaliyeed ay maraysaa marka nin taageeray hadda aragtaan hala yaabina waa iska qoomkaas oo kale aad iyo aad baan dhamaantiin idin salaamaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxa weeye ilaahan waa inaynu sida nijaasta la iskaga fogeeyo waa inaynu iskaga fogeynaa barnaamijku waa ka baxaya dhamaantiin waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu